إسرائيل ayaa si buuxda ugu dhawaaqday galabta inay dad u aqoonsatay Somaliland. Israa'iil oo iyaduna la tacaalaysa inay aqoonsi ka hesho inta badan dalalka Carabta iyo dunida Muslimka ayaa iyaduna dhankeeda waxay aqoonsi ka heshay Somaliland. Arrintan waxaa si wada jira u shaaciyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro. Tani waxay ka dhigan tahay in gobolka waqooyiga galbeed ee Soomaaliya uu aqbalay inuu ka mid noqdo heshiiska Abraham Accord, kaas oo 2020kii uu Maraykanku u qaabeeyey inuu ku hagaajiyo cilaaqaadka Israa'iil iyo dowladaha Carabta meeshana looga saaro dhul iyo wax la yiraahdo dowlad reer Falastiin ah. Abraham Accord dowladaha Carabta ee aqbalay waxaa ka mid ah dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo sidoo kalena kaalin weyn ka qaadata sida la sheegayo inay maanta is aqoonsadaan Israa'iil iyo Somaliland. Waxaa jirta dhowr qodob oo u baahan in la fahmo oo la xiriirta ficilkan. kow doonista Israa'iil. Nidaamka Benjamin Netanyahu wuxuu marar badan isku dayay inuu cilaaqaad iyo aqoonsi ka helo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu Muqdisho ka furto safaarad, laakiin dowladda federaalka ee Soomaaliya arrintaas waa ka cudur daaratay xilligii madaxweyne Farmaajo iyo hadda muddo xileedka labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh, sababtoo ah dowladda Soomaaliya hore ayay u sheegtay mowqifkeeda dhulka iyo dowladda Falastiin. cid walba oo aqoonsata Israa'iil ama ku biirta Abraham Accord uma doodi karto xagga Falastiin, beddelkeedana waa inay ka shaqaysaa danaha Israa'iil kana fogaataa wax walba oo dhaawacaya danaha Israa'iil. labo yaa fududeeyay arrintan. sida ay sheegayaan ilo xooggaal ah oo arrintan in muddo la socday, shaqadan waxaa iska kaashaday laba dowladood iyo hal urur. dowladuhu waa Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya, waxaana la isticmaalay shirkad ama urur la yiraahdo Al-Majad Yurub. Al-Majad Yurub waxay sheegin jirtay inay tahay hay'ad ka shaqaysa samafalka reer Falastiin, laakiin siday dhowaan Al Jazeera baaristeeda ku ogaatay waa urur shirka kulaha Israa'iil inay barakiciyaan dadka reer Falastiin kadibna dhulkooda la qaato. dhowaan dad ay hay'adan Al-Majad Yurub ka soo rartay dhulka Falastiin ayay dejiyeen waddanka South Africa. xubnaha ugu sarreeya hay'adan ayaa dhowr jeer tegay Somaliland bilihii la soo dhaafay. Maraykanku galaangal badan kuma lahayn arrintan, balse ma diidanayn maadaama uu xogta hayay. saddex waa maxay hadafku? Israa'iil waxay doonaysaa inay Somaliland noqoto gacan ay kaga hortagto isballaarinta Turkigu ka wado geeska Afrika. sidoo kale Israa'iil waxay ka rabtaa Somaliland inay noqoto goob la dejiyo dadka laga soo barakicinayo marinka Gaza. Itoobiya oo iyaduna heshiiskan qayb ka ah waxay doonaysaa inay dib u soo celiso damaceedii biyaha Soomaaliya, gaar ahaan isafgaradka ay hore u gaareen Muuse Biixi iyo Abiy Axmed. halka Imaaraadku ay rabaan inay Soomaaliya kala jaraan kadibna ay saameyn ku yeeshaan labada dhinac ee gacanka cadmeed. afar maxaa laga filayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya? dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si dhow muddooyinka la soo dhaafay ula socotay dhaqdhaqaaqan, laakiin wax tilaabo ma qaadin. goordhow waxaa shir lagu yeeray golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sida iska cad waa diidi doontaa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinkan, waxaase looga baahan doonaa shaqo ka culus midda ay ku hor istaagtay isafgaradkii Itoobiya iyo Somaliland. dhinaca Somaliland, maamulka uu hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro qiimo adag ayuu u kici doontaa tilaabadan oo xitaa amni ahaan ayay u saameyn kartaa, maadaama ay bartilmaameed rasmi u noqon karaan cid walba oo dagaal kula jirta Israa'iil oo ay ugu horreeyaan kooxaha Xuutiyiinta ah ee ka dagaalama waddanka Yemen, dadka Soomaaliyeed ee aadka u nacab Israa'iil iyo xitaa argagixisada ka dagaalanta Soomaaliya oo arrintan marmarsiyo ka dhigan karta.